kulanti wacan daawadayaal meel kasta oo dunida dacaladeeda nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan wararka Soomaalida geeska Afrika iyo sidoo kale caalamka oo hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta Warsan News waa 8 bisha Abriil 2021 qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa kamid ah daawadayaal afar qof oo ku dhaawacmay duqeymaha Israa'iil ka geysatay Suuriya mar kale dawladda Israa'iil waxay cabsi ka qabtaa gantaalada reedada dheer ee Iran madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu caawimo hubka iyo sidoo kale saanada militariga siinaya dawladda Taiwan taasi oo hadda ay si weyn murankooda cirka iskugu shareeray Shiinaha oo sheegtay dhulweynaha Taiwan qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan inta xillitabinteena Warsan News socoto imakii haatan ku soo dhawaada faahfaahinta warka wakaalada wararka ee sana ayaa soo xiganaysa ila wareedyo military oo sheegaya in weerarada ay ku dhaawacmeen afar askari weerar gantaala oo ku dhacay meel u dhow caasimadda Suuriya ee Dimashq ayaa waxa ku dhaawacmay afar askari sida laga soo xigtay warbaahinta dawladda Suuriya oo Israa'iil ku eedeysay weerarkaasi wakaalada wararka Suuriya ee sana oo soo xiganaysa sarkaal military oo aan la aqoonsanin ayaa waxay sheegtay in difaaca cirka ee Suuriya ay awood u yeesheen inay soo ridaan gantaalada inta badan ka hor intaysan ku dhicin bartilmaameedyada maanta oo Khamiisa dhanka kale daawadayaal sida lagu soo waramayo colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo sidoo kale Iran ayaa sii xoogaysatay toddobaadyadii la soo dhaafay waxaana sidoo kale ku jiray duqeymo cirka ah oo ay Israa'iil u geysatay maleeshooyin ay ku tuhumaysay Iran iyo sidoo kale Suuriya dawladda Iiraaniyiinta ayaa sidoo kale soo ridi karta gantaalada Israa'iil waxayna diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee Iran jari karaan masaafo ahaan 20,000 oo kiiloomitir dawladda Shiiciga Islaamiga ah ee Iran waxay ka jawaabi doontaa weerarada Israa'iil maalintii Salaasadii la soo dhaafay ay ku qaaday markabkii Safis ee taagnaa badda cas kaasi oo waxyeello badan ay ka soo gaadhay weerarka Israa'iil ay ku muujinayso gantaalada ridada dheer ee Iran ayaana cirka isku sii shareertay kadib markii ay dawladda Israa'iil Salaasadii la soo dhaafay weerar ku qaaday marka basaasnimo ay ku eedeysay oo Iran ay lahayd oo ku sugnaa badda cas Israa'iil ayaa sidoo kale waxay qorsheynaysaa inay weerarto bartilmaameedyada dhulka ee Iran arrintaasi oo cadho weyn ku abuuri karta dawladda Iran markabka ay duqeysay Israa'iil oo laga magacaabo Safis oo sitay calanka dalka Iran ayaa waxa haleelay miinooyinka Israa'iil